nolosha Somaliland ka xun ninka cadowga ah ee Ciise Ilaahay u soo diray inuu Ciise Somaliland dabgeliyo kii Ethiopia u dabgeliyo kii la joogayna weligiiba madaxaanadii kaga taaganay isaga islaantiisu amiyaan dadka Ilaahay abuuro Ciise miyaanu aqli kala lahayn miyaanu nin kala dhalin waa maxay kaarta ku dhacday ee uu dadkii ku baabiyay maanta magaaladii Diridhaba Ciise gurgada Ciise sida u hayeen cidlo ayay ka taagan yihiin dalkii Djibouti ana dhakadii kaga taagan maalinba dastuurka bedelanaya doorashadana ana galay cidna lama tartamayso geesiga dalkuna waa aniga islaantayda ayay noqotay iyo inuu ku soo urursado hogaami kooxdadii Soomaaliya oo hablihiisa u dhiso markaa rajalaantiisa siyaasadeed bay ka muuqataa taas marka maalmahan dadku wuxuu walqinayay madaxweynaha Somaliland inuu u ballan qaaday siday sheegayeen ina ka yara 30 jirka ee la leeyahay waa ugaas kama weynade oday dhaqameed beeleed ugaasku teendooyin badana ina ka yara 30 jirkii ugaasku shirka uu qabanaya badana ugaasku casuumad badana ugaasku baabuurta galbinaysa badana annaga way noogu sheekeynaya sheeka bareley aan meel la soconin ina ka yara miskiinka gacanta ka dambaysa waa la ogyahay gacanta ka dambaysa waa la ogyahay shirka ee shacana nin madax dhaqameed Soomaaliyeed oo Somaliland jooga ma qaban karo wixii gaadiid daba ordayayna ma qaban karo boqorka Sacuudiga qaban karin Jimnon Tani Ismaaciil Cumar Geelle ina ka yar iyo reerkan aad ku feegarayso waa laga aqli horeeyaa waa laga khatarsayaa waan kula fahansanahay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa maalmahan carabka la dhacay oo la lahaa isaga kulba waraaq saxiixaya madaxweynaha Somaliland ma hanin cunsuriya shacbiga wax ka codsaday iyo ugaaskuna waa dadkiisii beesha isaaqna waa beeshiisii beesha Samaroonna waa beeshiisii cid cuqdadu hayo oo uu leeyahay dalka ka baxa ma jirto wuxuu moodaya buugtan yar ee Hargeysaba lagu furto wuxuu moodaya buug yar oo dhaqana markuu arkay madaxweynuhu siigada daba socota markuu arkay fajida daba socota markuu fiqi iyo xuub caara arkay markuu Ismaaciil Cumar Geelle iyo arkay mananadiisa ayuu de ka noqday ilaa dalka hala gelin maayay saaxa madaxweynuhuna dalka wixii uu dana u busaxay musaxin muxuu ahaa qarannimada wixii la sheegay markuu ka waayna uu ka noqday anboo ka noqon la nuul banu ka noqon la arrinkan buug ka weyn ruwaadii Djibouti ay dhigtay lafteedii baa iyadii isku dhigaysaa madaxweynuhu wuxuu wadaa ka weyn buudi islaantana waxay tiri islaantu maxay waxay wadaa ka Soomaad gala waxaan ka weyn buu ka weyn sheekadani buu ka weyn waan arkaynaa waan maqlaynaa lacagta ku baxay kharashkan arkaynaa 6 taandho oo min 6 kun qof qaadaysa laga celiyay shalay loo yacdo ciidan 600 laga celiyay loo yacdo arrinka ma Djibouti baa wadata ma beel baa wadata ma miskiinka ila kuufiyada xun leh ee maxaa uqdaawiga ah ugaaska wata ma wato Ismaaciil Cumar Geelle iyo ku xumaynta xaasidnimada qadiyada Somaliland ee meel walba u galay ayuun baa ula gashay ka yarna waa la gelbinayaa ka yar Ahmed waa ku soo noqotay magaalada ka yar waa la gelbinayaa waana la hagayaa aqli uu leeyahay aqli gande iyo aqli ciisana laguma socdo shirku balaarana taanaykiisa la arkayay ee shaca go'aanada ay ka soo saareen qaraara waa kay waddanka kaga tagayeen oo wallahi
madaxweynaha Soomaaliland waxa leeyahay waad ku mahadsan tahay inanad markii horena cunsuri ku noqon inanad markii horena xumayn beesha ciise inanad markii horena aad lahayd waa beel adu mas'uulaad ka tahay u dhaaratay dadkuna ha u sanaadaan oo aad moodayso wax caadi ah markuu wixii noqday gacan kalena faraha aad kala baxday go'aanana aad ka soo saartay waa kugu taageersanahay markii hore iyo markii dambaba waxa iyaduna muhiima wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo amniga qaranka Cabdalla Maxamed Cali Carab Cabdalla Sandere waa nin waaye araga waa nin aan habeen dalka ka bixin waa nin siyaasadda waaye arag ku ah waa nin soo bislaaday waa nin xisbiga wadani shafka u soo dhigay waa nin xisbiga wadani u soo samray waa nin nasteexa waa nin aan bala abuur ahayn waa nin maanta Soomaaliland ay u baahan tahay waa nin nabadeed hadduu diidana waa nin colaadeed labadeeda gacmood midigtu waa buudh muxuu qaasan midii xiray midii deebaaqe midna waa malabkii maxayo xaga doocana waxa weeye Cabdalla Sandere wanaag iyo Cabdiraxmaan Ciro wanaag bay ku wadeen arrinka iyo buug reereed oo qodobo yar lagaga hadlayo laakiin buug qarannimadii Soomaaliland ka hor imanaya ku aan laynagaba bariyeen go'aan agteena lagu gaaray ee shaca 600 askari oo ilaalinaya inay yaro gara lagu sheegay ugaas waxa lagu xuqaashi Soomaaliland ka sarreeyay ma jiro والله walaalkayba ka sareeyay baad jiid oo jiif aqla oo ummad matala oo gobol matala oo gobolkan gabilay waa ka dad badan yahay Djibouti ina ka yare lixda taande ee min kun ka halku ka keenay ina ka yare 600 askari ilaalinaya halku ka keenay ina ka yare shirka ee shacal lagu qabtay qarashkiisa halku ka keenay 20 gaadi ee galbinaya xaqu ka keenay madaxweynaha waa madax dhaqameed Soomaaliland inta madax dhaqameedka Soomaaliland yahay oo waliba xurmo la siiyay ayuu bulay yaa sidii xoolaha dadka loogu sheekayn waxaan taageersanahay go'aamada xalay uu ka soo saaray Cabdalla Sandere Saylac waxaan taageersanahay baro saabka abtiga aanu nahay Cabdi Saciid Faahiye oo siyaasado hore oo ninka Ismaaciil Cumar Geeli uu khali wareejiyay muddo badan dibadda meerayay abti maanta haddii aad muddada daabkeeda haysato ciise shalayba fadal kuma lahayna qaranimada Soomaaliland bad wax ku tahay ku difaac oo iska celi Ismaaciil Cumar Geeli iyo cid kasta oo adiga kursigaaga nabadgelyo darre ku keenaysa waxaan halkan hambalyo kale uga dirayaa taliyaha ciidanka qaranka nimcaan Gaxnuug oo runtii muujiyay waayeelnimo oo runtii muujiyay dulqaad marka laakiin arrintii isku bedeshay gacan ka hadal ciidan ku filan geeyay meeshii caawana Saylac jooga maanta Saylac jooga qodobada Cabdalla Sandere ka soo saaray Saylac mid xaaraani kuma jiro kuwa ka cabanaya ay shacadaala nagu qabtay oo lanoo diiday in Saylac galo sax bay ku tahay ciidanka booliiska Soomaaliland waan ku taageersanahay hadday RRU yihiin hadday ciidan qaran yihiin iyo hadday wasiirka yihiinba dad baa durayay Cabdalla Sandere oo nin labac oo maxay ogolaado lagaga baxay oo Ciro intuu ka daba saxay haddana kaga baxay oo isla war loo dhiibay waxa ka dhigay waxaas dhammaan waa hadallada laynagu soo dhex tuureen walqino marka baroortu orgiga ka weyn ciise buu ka weyn sheekadanina sheeka buu ka weyn wallaahi oo billaahi oo tullaahi waan garanay من بلو إلى دمات سياسة إسماعيل عمر قال لي إنني هبين عيسى كمقنين لكن وإذن أرتاير ماتا أي دقين هسيجين ميلن دقناب الله نون كسو كلا بحي
احترام iyo walaaltinimo iyo dad dhowr iyo qarannimo jacayl baa na siisay ciise halkan ma hor joogeen waxaan leeyahay wasiirka dakhiliga taliyaha ciidamada qaranka taliyaha qaybta booliska hawshiina qabsada meeshan ma jiro buug yar oo la furayaa waa ciidan raran waa taandhooyin raran oo shalay laga celiyay loo yacdo iyaguna ay kaga jawaabeen qareengoogii inay soo celiyaan qareengoobaad sheegaysaana dalkaba ha kala jaraan laakiin xaalad adag baa ka taagan xukuumaddu waa inaanay u labaclayn xukuumadda waa loo cadaystay dagaalka ina ka yar waa in la xidho ina ka yaree muxuu ahaa gala dagaalka cusub waa in la xidho ina ka yaree soddon jira ee ummadda intaa leeg daba guurayso ninka daba wadaanu garanaayo waa nin ismaaciil cumar geele laydhaa oo cadowa oo xaasida oo ummaddiisa ilaahay ku diray oo xilligay bisaduhu gelayeen jabuuti bay gaadhay annagaa kuu sheegayna ismaaciiloo bisadaa gelaya jabuuti waayo xaasidnimadu waxay cuntaa xasanaadka waxna ma tarto marka 30 sannadood baan iska kaa kari lahayn 30 sannadood baad albaab walba nagala dagaalamaysa maanta waxa kuu bilaabmay xilligii bisaduhu gelayeen hadba jabuuti adaa ilaahay ka bariyey haddii somaliland noolaata inaanad noolaanayn adaa ilaahay ka bariyey inaan laba iftiin iskaag noolaanayn adaa ilaahay ka bariyey sidii waxaad baktiyayso in haddii somaliland noolaata aad baktiyayso haddaba somaliland way noolaanaysaa ilaahay baana dadka arsaaqa ilaahay baana dadka dulleeya ilaahay baana ciseeya waqtigaagi baa bilaabmay adkaysatee waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha somaliland arrintaa go'aamada aad soo saartay hargeysa aad baa looga tiirsaday waa go'aamo dowladeed meesha dowladnimo unbaa laga rabaa shacabkan cid hogaamisa unbaa laga rabaa shacabkan waa u diyaar inay dalkooda difaacdaan somaliland ciida ku filan oo u howlgalo way haysaa laakiin waxa la dhaliilaya go'aamada xukuumadda oo jileec iyo kala saxeex iyo kala hadal lagu dhaliilayay taasina waa nigale madaxweynaha anuu ku canaanan maayo oo de hombari libax bay soo wataa hadduu yidhi kolkii hore wuxuu moodayey beel yaroo intay meesha ku tumato ka mida uun de beelaha degan dalka laakiin markuu arkahan garaaraca daba socda madaxweynuhu da go'aan buu gaadho wuu ka noqday annagaabalo wuu ka noqday waadama wuxuu ku soo daaya waraabe wasiirka daakhiliga 2 jeer buu soo noqday markii horena waa ku taageersanayn maantana go'aamada xalay ay soo saareen isagiyo badha saabku iyo guddida amnigu waa ku taageersannahay waxaan leenahay waa intaasoo laga labalabayn wax alla waxay yihiin reer jabuuti ma jiro wax alla waxay tari karaan ma jiro haba soo weeraraan somaliland saaka inoo bilaababa 30 sano waxaad qarinaysa waxaan leeyahay shacabka somaliland waa inay fahmaan sheekadani inay buu ka weyn tahay iyagu oo aan ciise dastuurka somaliland garanayn ayay dastuur reer dhakada inay dadka ka saaraan doonayaan caqli miyaanay lahayn reer intuu soo samaysto buug oo la buunbuuniyo lacagtii jabuuti oo dhan la geliyo buugu lacag badan ah waar waa la isfahmayaa ismaaciil cumar geele habeen keliya somaliland raalli kama noqon laakiin rag garanayaa la ciyaaraya afku dhulka ku dhufan doonaa waxaan si ka baqayaa inuu beesha